kasriga madaxtooyada ku-meeldeerkan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ku qabsoomay kulanka toddobaadlaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo uu gudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee kulanku khamiis walba ku qabsoomay kasriga madaxtooyada madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen uu gudoomiyo maybuwa ko diirada la ka saaro xaalado ku jira deegaanada koonfur galbeed sidii wallan ku wada lahay isla markaasna la dardar gelin lahay qorshayaalka lanka adeega shacabka kulanka madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen uu gudoomiyay geeka iyo ku qayb galeen wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dawlad saacado uu socday meelan ku hadalay xaalado ku jira deegaanada koonfur galbeed oo ka horeeyaan xaqiijinta amniga magaalooyinka deegaanada koonfur galbeed xakameynta cudurka COVID-19 iyo dardargeliyowga fulinta himilooyinka shacabka wasiirka wasaaradda amniga guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Isaaq Ali Sow oo koreen warbixin ka saabsan ammaanka guud ee deegaanada koonfur galbeed lagu dhageensaday ma isu tilmaamay anti ammaanka guud ee deegaanada koonfur galbeed wal qalalaaseen ku dhino toddobaadkii una dhaafni walow ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada Soomaaliya iyo wadan howlgalada ka bacsada u dhagar qabiyaalka argagixisada al-shabaab Isaaq Ali Sow wasiirka amniga iyo dhinaca kala tilmaamay anti qaybo shal duwan ciidanka iyo diyaar garooban xaqiijinta ammaanka gobolka gobolaha doorashada xubno aqalka hoose ee magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe wasiirada wasaaradda cadaaladda arrimo gudo iyo waliba xanaanada xoolaha ma si wada jiray oo tilmaamayna howlo shaqo ee wasaaradda madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo golaha wasiirada kuma hadnagi dadaalkii oo ka jaran sidii ka adeega lahaayeen shacabka mayna dhinaga kala u safaray antiyo dardar geliyeen sidii ka adeega lahaayeen shacabka ku nool gobolada Baybakol iyo Shabeellada Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya dhinaga kala madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo shacabka kala dardaarami anti iyo ka dadaalan sidii ku horseeda lahaayeen cudurka caalamka saameynta ka weeldadii ee COVID-19 Ilyas Ali Nuur Ali wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shirka markii dhamaadii kureed warbaahinta dowladda ku warbi waliyaaboga diirada la ka saaray bismillaahir rahmaanir rahiim geeko oo taariikhda 23 bil 9 2021 may banin qabsoomay shirki golo wasiirada shirka golo wasiirada may balin ku hadalay dhowr qodob iyo lin ku hadalay an ka horeeya safarkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo uu kadeeri magaalada Muqdisho safarkaas madaxweynaha may banin ku warbiyay golo wasiiradu san sheegay intii may leeyahay habraacii doorashooyinka laaska afgordi sidii doorashooyinkaasna liin dardar gelin lahayna la iska afgordi dadkii liin xil saar lahaayay masa may leeyahay la iska afgordina intii naftashoona may leeyahay training badan la siiyo doorashooyinkaas sidii liin tababar lahaay badan ayoon nin ku warbiyay madaxweynaha taasna la iska afgordi iyo khilaafkii dowladda federaalka madaxda ansaraytii dhaxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha intii may leeyahay kaalmiin ku qaaday madaxweynaha sharafta leh kaalintaasna uu meel fayl marsiyaayeen oo siina safar gaaban waxaan ka bahi caasimada ku meel gaarka magaalada Baydhabo laakiin ha ku tabi howlo iyadoo meel fayl maraasa waana sidoo ka hamil dheeriye ama ka rajo dheeriye intii la gabagabeeyay doono guulna ka dhamaada doonta yar rajay madaxweynaha yana nin ku warbi ciidanka maasini may kale doo ku hadalay wasiirka amniga u siina guutaan amniga deegaanada koonfur galbeed u siina nin ku warbi amniga koonfur galbeed xaaladii ciidan faylata alxamdulillah ilaahayni zaa'idi inkastoo nimanka nabadiidka iska deeyayaan intii may leeyahay amnigaas qalqalgeliyaan oo xirfad kasta ama si kasta biyoon adeegsadayaan sidii amnigaas iyo ku horseeda lahaayeen ama an qalqalgeliy lahaayeen laakiin may barooge laamo ammaankiya roogan yoona ciidanka hoolano sidii ku horseeda lahaayeen dhibaatooyinka nimankaas mareegayaan taas guutaan may bahaytay amniga yahayti may kaleedoo warbixin lagu dhugun siday wasiirka arrimo gudo wasiinanin sheegi golaha deegaanadii intii badan ayoona tareenada badan la siihayo waana la dhisahayo meel fayl marahayto golihii deegaanada sida Baraawo oo kale intii meel fayl marahayto yanin ku warbiyay wasiirka iyo tareenada badan intii la siihayo marna in iska kooy doonaan shirwin ama may leeyahay magaalada Baydhabo oo in iska kooy doonaan la qaban qaabiyahay oo madaxweynaha daahfuro doona sidii yoona tareenada badan la sii lahay horumarkan aan ku shaqeey lahaayeen oo iyo doorashooyinkii aan ku shaqeey lahaayeen golaha deegaanadaasna
yoona hooliyo meel fayl marahaytay iyo wasiirka ku warbixiyey may kaleedoo warbixin laku dhugunsaday wasiirka xanaanada iyo xoolaha usiino sheegay intii may leeraayus iyo ka dadaalahayaan sidii liin helo lahaayey xoolo maadaama reer koonfur galbeed iyo ayin dad xoolo dhagata iyo umbadanyin sidii xoolahaas liin ka horseeda lahay cudurrada aafeeyey mase cudurrada ka dhiyaayaan liin daaway lahay iyo wasiirka ku warbixiyey marka intii xoolo badanna may leeraayus daawooyin soo yeesheeneen oo xataa virila ka dhiibayo may leeraayus lankii xoolo ku xanuunsan wasiirka ka warbi intii may leeraayus iyo gacan sii doonaan dad badanna liin tababaray deegaanada deeri doonaan qaarshoon hadda ka shaqeeya agaasimo aan koreeyo barnaamijkaas iyo ka maqonyiyo wasiirka warbixiyey sida saas oo kale may kaleedoo wasiirka ka daray inti shay baar xataa iyo dhiseen koonfur galbeed laka dhisi may leeraayus xoolahaas laka daawayi doonaan may kaleedoo warbixin laku dhugunsaday wasiirka diinta iyo ooqaafta iyo warbixin lagu dhuunsidii oo safarkii u siiyo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka iyo ka seedan xudur iyo ka seedan degmada xudur iyo ka seedan yaa lagu dhuunsidii yoona aan bahan aramo meelaas ku jaray si oo aan xalliyan daraadiyo kama qanaayeen aramoogina may ba nin sheegana intii xalkii iyo deerano ilaahay in fududaay toddobaad walba maalinta khamiista xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ku qabsoomay kulanka toddobaadlaha golaha wasiirada kaas oo uu gudoomiyo madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen saacado uu socdo may diiradda la saaray xaalado ku jira deegaanada koonfur galbeed iyo sidii walanku qabada lahay isla markaasna la dardar geliyay lahay imilooyinka shacabka Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed madaxtooyada magaalada Baydhabo